السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحابة وأهل السلام، الحمد لله رب العالمين وأهل السلام ولا يرسول هذا. waxaan fiidiyoga waxaan hadda u soo galiyay wax yar oo kaliya weeyaan, ma badna, hal daqiiqo camal. maanta waxaan soo galiyay alaabo la isku dardaraayo oo aan sheegay inay xulbad igu jirto, laakiin codka intii dambe waa ka tirtirantay. macnaha wax dhibaalka iyo waxtarka ay leedahay xulbadu labadaba inaan kaga sheegaan rabay. marka xoogaa hadda markaan intaan dhageysto waxaan arkay inay codkaas ka go'an yahay. sababtu waa go'an hadda ma ogi, laakiin waxaan idin sheegayaa xulbada dadku ma wada cuni karaan. qofkii la qalay oo caloosha laga qalay si walba baa looga qalo, ama uur looga qalo, ilmaha looga qalo, ama maaragtay looga qalo si kaleeto. qofku hadduu yahay qof caloosha ka qalan, xulbada ma cuni karo, uma fiicno, uma wanaagsana. meeshii la qalay ay furfuraysaa oo maaragtay ay jilcinaysaa. laakiin qofkii caadi oo la qalin oo si caadi ah ilaahay ilmo u siiyey wuu cuni karaa, ama markaas maaragtay marka ugu dambaysa, bisha ugu dambaysana biyaheedu waa iska cabi karaa hadduu caadi yahay. laakiin qof la qalay ma cuni karo. marka waxa ku darsanin xulbada geedahaas haddii ilaahay yiraahdo. qofkii qalliin marayuusa ku darsanin. intaas fartiintaas yartaa idin soo gaarsiinay inaan cod ku duubnayna arkay, laakiin anigu xulbada igu darsanaan leeyahay oo ku jirto codka. laakiin saa u ogaado qofkii la qalay isku cun xulbada. wax kaloo cunaa iska jiri karo, ilaahay dawo kale ha siiyo, laakiin qofkaas ma cuni karo insha Allah. saas la socdo saxaabe, intaasaan idin sheegay. khayrna waa idin dhaafay insha Allah, khayr idin rajeynayaa. klibkan yarkaas aan soo galiyay waa idinkaasa. soo dhawaada, subscribe-ka iyo commentiga iyo wax dhanna ii soo geliya insha Allah. gambaleelka taabta waa idinkaasa insha Allah. soo booqasho wacan waa idinkaas.